wiilkii Soomaaliyeed ee u dhashay beesha Gabooye ee laga raacay ninka Chinese-ka ah isla markaana lagu yiri adigu iima qalantid ee waxa ii qalmaan ninkan Chinese-ka ah ee wata lacagta ayaa afka ooyin furtay waxa uu sheegayaa qaabka ay uga tagtay gabadhan lagu magacaabo Raxmo isla markaana ay uga dooratay ninka Chinese-ka ah ee haysta lacagta aadka u fara badan ee familkeeda siiyay intaasi oo milyan oo lacag ah aabaheedna uu ku baxshay goob fagaara ah. Gabooye ayaa hore loo yiri wiilkan balse gabadhan ayuu dunida u jeclaay gabadhii uu dunida u jeclaana waxa ay dooratay ninkan Chinese-ka ah oo uga yimid halka iyo Japan kadibna Hargeysa dadkii joogay familkii gabadhan ku hirqiyay lacag aad u fara badan horay ayay u dhacday wax badan gabar Soomaaliyeed oo guursatay nin ajnabi ah isla markaana ka tagtay wiilasha Soomaaliyeed balse tani waxa ay uga bedelan tahay qorshooyin kale oo halis ah ayaa ka dhaxdhacay goobtii meherka sidoo kale gabadhani wiil Soomaaliyeed ayay qayaantay wiilkii oo dunida ugu jecel ayay ka raacday nin Chinese ah balse waxa uu leeyahay wiilkan Soomaaliyeed ma ku waari doontaa dhibaatadii aad ii geysatay ninkan Chinese-ka ah maxaa kugu sameyn doonaa ka joog Raxmay aniga ayaa dunida kugu jecel aabaheed ayaa yiri haddii gabadhayda aad ka daba harin waan ku xirayaa ooyin ayuu afka la dhacay kadib markii jacaylkiisii lagu horwatay isla markaana nin lacag haysta oo Chinese ah oo halkaasi iyo Japan uga yimid kadibna hoolka ugu weyn magaalada Hargeysa meherkoodii ka dhacay aabaheed oo aan inta badan dadka ay ka dheehanayeen inuu faraxsanayn oo siiyay gabadhaasi maadaama ninka Chinese-ka ah oo san ugu dhaqan iyo diin ahayn naga daa aabe ayuu markii hore ku yiri balse gabadhiisa ayaa ku tiri aaba ninkan dunida aniga ayaa u jecel kamana hadli kartid ninkan anigu aan wato balse waxa uu ku qasbanaaday markii lacag lagu hirqiyay isla markaana qanaacada gabadhiisa ay ku tiri aniga ayaa ku qanacsan ninkan inuu ku xiro ugu dambeynna oo siiyo haddaba qisadan ayaa dhowr meelood laga dheeha karaa taasi oo dadka Hargeysa dhinacna uga farxeen dhinacna ay aad uga murugoodeen inkastoo gabadhu ay faraxsaneed isla markaana ay farxad muujinayso waqtiga la joogo arooska dad badan ayaa ka murugsan sida walaalaheed iyo aabaheed iyo sidoo kale qofkii ugu murugta badnaay arooskan dhacaya iyo farxadan iyo damaashaadkan ninka Chinese-ka ay gabadha Soomaaliyeed isku guursanayaan ninkii ugu murugada badnaay waxa uu ahay wiilkan ka soo jeeda beesha Gabooye isla markaana lagu cunsuriyeeyay gabadhan asagoo oo dunida u jecel balse ugu dambeyn lagu daray nin Chinese ah oo wata lacag badan isla markaana milyaneer ah Japan ayaan ku geynayaa kadibna waxaad baranaysaa qaabka dooliga iyo sidoo kale baranbarooyinka loo kariyo ayuu yiri isla markaana gabadhani waa ay aqbashay oo qalinka ayuu ku duugtay aqbalaada inay ninkan jeceshahay gabdho badan oo jooga magaalada Hargeysa oo ay ka mid tahay gabadhani ayaa aad uga xumaaday wixii ka dhacay halkaasi isla markaana waxa ay leeyihiin gabadheeni ninkan Chinese-ka ah uma qalanto ka joog wiilka Gabooye ayaa ku fiican ay kula jooga magaalada Hargeysa ee farxadda iyo raynraynta kula qaadanaya xog hoose ayaa soo baxaysa in gabadhani iyo ninkani ay hadda isku dhaceen arooskii kadib oo ahay 2 maalin ka hor xilligan xaaladda wiilkan oo markii dambe u baxshay reer Hargeysa familka gabadha Mustafa balse magaciisa uu ahay Sunjiyu Min iyo gabadhan oo lagu magacaabo Raxmo Axmed ayaa ugu dambeyn markii ay aqal galeen dad badani ay aad uga xumaadeen aqalgalkoodii isla markaana waxa ay leeyihiin ninkan Chinese-ka ah maxaad ku fashay adigoo wiil Soomaaliyeed ee kula dhaqan iyo diin ah u jeeda balse arintani ayaa hadda irtaan xogta sirta ay soo baxaysa ayaa sheegaysa in ninkii iyo gabadhu ay hadda iskhilaafsan yihiin isla markaana ninku uu u tagay wixii uu filayo maahan wax kale ninka Chinese-ka amba Japanese-ki inala dhaqan maaha laakiin adigu dadkan la diin baa tahay la dhaqan baa tahay la af baa tahay waxa ninkan kale lagaaga door bidaya Chinese-ka aan laba garanin wuxuu cuna xataa iyo diintiisa maxay tahay hadaa kaftabaniyo waxaan shiraajigu waxay ku cadaab galayaa jaanib jacayl iyo baashan qabaxda leeyahay ninku koto ku bixiyay baa leeyahay inaad koto ku bixiyay cid ma diidaysa baashan aad baad isku fiicantiina marka anigu ilaahay waxaan ka baryay inaad horta jaanib jacayl aydan ku cadaab galin taa ilaahay baa idinka baryay waxaan kale ilaahay ka baryaya oo ilaahay idinka baryaya inaydan faquuqad nagu haysan aydan ku cadaab galin qiyaamaha idin qabsan meena shalay weeno qiyaamaha baan ariyo
qaar badan baa yidhi qiyaamaha naga daaya waanu idinka dayna anagu dad caluul fiyoobo aan dadka cafiyaanna bal idinkuna waxaanaad nagu haysaan naga cafiyo soo dabca waba intaaba saaxib bulshada iyo dadka waaweyn iyo dadka culimada ganacsatada iminka deegaanka Soomaalida jigjiga waa hore waxa ka dhacay in guur dadka deegaanka ka soo jeediyo dad kale isdhexgalkooda laga shaqeeyay dad badan oo la isku guuri fariin noocaasa bulshada ma u maraysa hawada in acyaanta bulshadu fariin noocaasa ka shaqeeyaan si ruta ku sheegayay ma dhici kartaa horta ruta ku sheegaya guurka sheegaysa jigjiga wax iskuursaday lama garanay laakiin filin inay ilay keenay oo islaha dadkii isku dhax galaan oo la isku guursado dhaqanka lagu baabiyaabay laakiin cid ay iskuursatay ee la isku guuriyay ama reeraayga aad ama reerka kale ka soo ahaadaan inaadan way markii meesha la yimid waa la garaway cid kala haayeen marka in lagu dhiirado oo taasoo kala la keeno oo dawliba dadkii la garanayay oo waxaan waaniga ku dhimuday qaadanaysaa wacyiga xagga diinta wacyiga aqoonta wacyigelin adigu bulshada dhexdeeda waxa soo dhanba u baahanta waxa u baahantahay waxaan halkii ka soo bilaabatay isirkeedu halku ahaa dhamaan halkii ku dhamaanaysay xaqiiqda in la keeno culimadu waanay ka gabanoona ka istaagin mala waxaan maleynaa isiraada culimadu ka hadal su'aal bay ka baqaano aad iska bilowga war culimo cidnaydu waramaysa iska bilaabay arinkani waa arin diiniya oo u baahan in laga hadlo oo u baahan maxay dadka la faansiiyeen akramakum indallaahi wa adqaakum inay dadkani sima yihiin oo ilaahay agtiisa lagu kala dhow yahay sidii lagu kala cabsi badan yahay inaad umada fariinta gaarsiisaan cidawaadu yaaniska la dhageystaa waa culimada waa in doodo fara badan laga yeeshaa waa in waxaan way jabaysaa sida imika bas dhaxgal ku bilaabmay political participation kiyaan meel fiican uga gaadhnay baarlamaankiina looga doortay wax ka muhiimsan waxa weyn dadku isdhex galaan oo ummad reer Soomaaliland oo qabiil iyo wax lagu weegina qadiyada reer Soomaaliland dadku isku guursadaan iyo ashhadu an la ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuul waxaan qabaa dhalinyarada niminku iyo dadka nimika soo kacay garaadkoodu inuu bisil yahay cidda wali xariga sii haysaa ay dadkii hore tahay iyaguna ama u geyso jaahilnimo ama dhaqankii ay ku sii adeegayeen ahaato taana wacyigelin fara badan Soomaaliyeed qaarkood waa jecel yihiin inay guursadaan nin ajnabi ah balse dhibaatada iyo arxan la'aanta ay kala kulmaan ayaa saa'id noqotay bariyihii u dambeysay waxa aana soo badatay gabdhaha Soomaaliyeed oo ay si xun u bahdilayaan niman cadaan ah oo ay guursadeen 3 gabdhood ayay u dhashay mid joogta Jarmalka ugu dambeynna markii uu ka dhameystay ayuu yiri iskaga bax gurigayga gabi ahaana sharcigii ayuu kala laabtay Soomaaliya ayaana laga soo tuuray qiso noocaas ah ayaa dhacday bilooyinkii la soo dhaafay iyo sidoo kale qisooyin badan oo aad u fara badan haddaba ninkan Chinese-ka ah ugu dambeyn raxmo waa hantiyay waxa uu haddeertaan jooga Hargeysa wixiisa ka imaan doona oo ka soo kordhi doona Allah wa alam ilaahi ayaa og